imse dakhli waa kusoo gala talo dee markii la faa'iideyna dadka wax ka faa'iidaan kamid ahay maasha allah markii loo qasaaran haddii aan fiiriyo online businesska oo aan youtube-ka ku qoro sidee lacag loo sameeyaa waxa marka ugu horeysa soo baxay Hila Bashiir qofku sidee buu niishkiisa u yaali karaa shaashada ugu horeeya ama kaalmaha ugu horeeya aan ku weydiiyey youtube-ka 100,000 ee subscribers-kii kuugu horeeyay imse sanay kugu qaadata ama imse bilood niishka aan ka hadlayay waa niish lagu jira ma ahayn dadka badanka barankay iyo waxyaalahaas dadku Soomaaliya daawan jireen sax maalin waxaan xustaa in saacadna ay daawan jireen kaliya muuqaalka aan heer waxa soo mar subscribe u horeeyay ana iska saaray seebo qofku heli karaa xorriyad dhaqaale financial freedom-ka aan go'aansaday anoo shaqo haysto oo waxa weeye xanaali ah in aan kansalo waxa weeye oo shaqo la'aan ku soo dhaco sidee buu qofku blogging u bilaabi karaa maxaase looga baahan yahay markuu rabo blogging inuu bilaabo si mawduuca uu soo gudbinayo oo uga sameeyo ugu yaraan $200 mawduuca u dambeeyna kooda sheekaysan doono waxa weeyaan financial freedom qofku sidee buu u helaa ama uu u gaari karaa xorriyad dhaqaale su-aasha koowaad aan doonayna ku weydiiyo waxa weeyaan qofka saameyn miyuu ku yeelataa inuu sii ahaado waqti dheer shaqaale waa sax weeye horta dhalinyarada saameyn qofka dabcan way ku yeelanaysaa inuu shaqaale ahaado qofna ma rabo inuu qof kasta u shaqeeyo waxaa malaya daay in ay haddii kood ba jiraan haddii aad farxadaada ka shaqeyn qof kale farxadiisa ka shaqeynaysaa yes waa kood leeyahay way marka saameyn qofka way ku yeelanaysaa qofna dee kuma qanacsana inuu subax kasta ka laho oo qof kale u shaqeeyo marka way kugu yeelanaysaa absolutely laakiin marka taleyn waxa dhahaa goolkaaga ku gaar hadafkaaga waa inuu ku dhaweysaa waxa ku dhex jirtay hadafka waa inuu ku dhaweysaa maalinta isleedahay ni waxaan waa ka dhex bixi karaa waqti badan Soomaalida waxa dhahdaa shaqa looga tagaa haddii aad shaqada ahayn aad ka tagin dee taa kale cidna ku qaban mayso Soomaalida laba doowadow reexamadka waa fiican beeri waxa dhahaa laba doowado dabada dilacdo macnaha waxa weeye at the same time ayadu Englishna way jirtaa whoever rides two boats asbidaan marka haddii aad dhahday laba doonba laba lug kala gashanaya ma wadi kartid midna halkaas aadaysa kala go'ay ugu dambaysta waa kala go'aysa waa mamaada soo saxdeed marka waa inaad mid u go'do marka isleedahay marka aad hadda u go'o waqti gali energy gali quwad okay marka qofku haddii uu rabo inuu shaqaalinimada ka sii baxo dareen ahaan talow maadaama waqti dheer uu kasii shaqeynay shaqaalinimadii dareen ahaan iyo maskaxiin ahaan talow saameyn waa ku yeelataa qofka marka ni horta aniga dhankaas psychology waa laga badiyaa laakiin markii noqoto dhaqaale ahaan way ku yeelataa aniga angalkaas waan ka fiirin karaa waayo marba dhalinyarada ma asxaabna qaar ilaasad qaar xafiiska igu yimaado waxa dhaniyo 15 sano Yurub joognaa qaar Canada America oo waa shaqeynaya aniga wax wana ma hayo kan u fiican ba kulina guri aan istaan gaari baan ka wax kala ma laakiin sidii baan u kala haano waa weynaa daaba igu socoto ma kali karo wali sidii u xamaala marka dhankaas qofka waxa xamaaliga horta laga ma taajiro qof dunida arkimaysid qof xamaal ka taajiro ganacsi waa laga taajiraa investment maal gashi baa laga taajiraa laakiin xamaal qof dhahay maanta waa ka taajira ma jiro sabeen marka absolutely dhanka dhaqaalaha way saameynaysaa okay qaybta dhaqaalaha way adigaan ku weydiiyey maxaa ka caawiyay inaad bal shaqaalinimada aad ka baxdo wallahi waxaan dhihi karaa horta number 2 waxa iga caawiyay waa mindset-kayga weyn waa mindset fiican baa yeeshay go'aan iga soo gaaray inaanan meesha aan ku dambeyn go'aan adag waa inuu qofku mindset-kiisa sameeyaa kadibna decision uu qaato weeye waa inuu goals iyo ahdaaf qofku leeyahay uu samaysto weeye marka waxa soo dhan dabeecadaha bedeshid waa inuu qof mataqaana buug badan inuu akhriyo weeye waa inuu qof mataqaana podcast badan dhageysto waa inuu qofka waxa weeye wax kasto dib ku dhawin goolka aad ka shaqeyso number 2 marka mindset-ka bedeshid skill-kii aad u imaanaysaa waxyaalaha ugu badan ah dhigay xirfadaha martay sax maalin kasta inaan mataqaana online course qaato oo skills barto wax kasto tarina barto ardayda lagama weynaado anoo Malaysia wax ku soo barto economics oo ka soo bartay marka halka ay mid shahaadada waxay lama aqoonsanayo iska shaqeyso waxa ka bax luqadda waddanka iska bar oo aan English ahayn basically iska shaqeyso marka waxay noqotay inaan u wareego dhankaas oo xirfado online marka skills maanta waa very powerful adoo guriga jooga hada xirfad barta lacag waa sameyn kartaa ama xirfadii waad ku shaqeynaysaa ama xirfadii waad sii bari kartaa oo ina school online fursad baa kartaa oo macallin noqotay ta u dambaysan waxa iga caawiya waa toolska oo social media
waan ku bilaabay YouTube iyo blog baan ka bilaabay markaan community sameeyay dadka wax free markuu lacag ka maqaadi jirin YouTube ka free صح sideed bilood kadib baan ganacsiga bilaabay website samaystay aan bilaabay inaan wax iibiyo marka adiga naftaada maal gashid mindset-kaaga bedeshid marketka soo gashid community aad samaysid waa inaad wax soo dhiirigelin kartaa waa inaad suuqa product keeni kartid waa inaad suuqa wax kusoo kordhin kartaa marka ilaa maanta qalad timaadid productigaaga weeye صح product businessku waxa dhahaan Soomaalidu businesska wuu barakeysan yahay صح hada business xalaal ilaahay ku barakeenay waxa la yaqaanana consistency wax la sameeyo oo joogteynta weeye waaye ina waxa processka soo raacda wax fudud ma aha qofka inuu suuxisa kala hago fudud shaqadiisa laakiin wax joogteen u baahan wax dadaal u baahan marka waxa dhaca consistency-ga hal la badiyo oo wax weeye iyo commitment inuu go'aan ka imaado wixiina aad muddo joogteysid waa la qabsanaysaa kadibna waa caadi kuna dii caado positive weeye then maalin kasta wax ku soo kordhiyo goolkaaga dhawaanaysa decision kaasan slay aad buu adag yahay badana dadku anigaas igu adagtaan inta ku shaqaalana go'aan aad u adag weyn oo qofku qaato inuu ka baxo shaqaalamada waxaa rajayna boostkaatida kale inaan adoo boosta aan kulanno insha Allah saad sheegtay hadafkii gumaal lagu gaaraya inkastoo jecla waxaan haddana qabto bal aan ku weydiiyey adiga haddii aad su-aashan raalliga tahay unbaan ku weydiin karnaa ood nooga jawaabi kartaa imse dakhli baa kusoo gala talo والله waa su'aal fiican dadku mustaqbal way waxana waa public way arki karaan marka business la yiraahdo business ka yaqaanaan tameed dhaqaalaha ka soo gala way fahmayaan laakiin waxaan dhigi karaa horta number 2 waxaan leeyahay mataqaana school online aan leeyahay oo e-learning platform baa leeyahay kala bisha dadka صح waa academiyad hada gashay koorsooyin badan kaliya macallimiin kale oo xirfadlayaal ku jiro hadii noqonay web design-ka video editing-ka graphic design-ka computer-ka barashadiisa cryptocurrency iyo mataqaana finance income-kaaga waa e-learning platform ganacsi baa leeyahay xafiisan Belgium ku leeyahay Soomaaliya xafiisan ku leeyahay ilaa 7 qof baa kabaniga u shaqeeyo صح labo waxaan leeyahay shirkad web designer website design agency oo Soomaaliya Europe America dadku wana soo wacaan website naga badan waan u sameeynaa lacag ka qaadnaa toddoba qof aan ku sheegay laba kamid ah oo sidoo sameeyo inta xamar iyo waxa kala joogaan Hargeysa saddex way hadda xamar iyo waxa kala joogaan Malaysia shirkadana waa leeyahay saddex waxaan ahay mataqaana investor baan ahay oo cryptocurrency dad badan baa sim crypto aad baa maal kasta suuqa waxa way cryptaha dee markii la faa'iideeyay dadka wax ka faa'iidaan kamid ahay ma sha Allah markii loo qasaaran laakiin long term baa maal kasta aad baa waxa way waxaan isleeyahay dadka master gaar ahaan aniga halkan laga taajiriya cryptaha laakiin 4 sano kama yara argasigeeda dadna ka taajirtay insha Allah ilaahay noo tan afraad waa iska mataqaana social media in kasoo dhaqaala badan aan ka helin YouTube ko kala waansan taasan aragnaa nagu badan taas waa waxa ugu yar dhaqaala ka sameeyo way social media YouTube ka roughly bishii $600 baan ka sameeyay €600 waxaan aragnay sababtaasaan ku weydiiso waana runtii dhaqaala yar weeye aad uma badna waxaan kirada xafiiska aan iska bixiyaa master laakiin businessyada kale tan u dambaysa aan sameeyo waxaan barnaamij waxaan sameeyaa consulting baan sameeyaa waxaan la taliyaa dadka rabana ganacsi oo bilaabaan master barnaamijkan saacadii €100 weeye marka master dadka Europe America jooga Australia laga soo dalbada Zoom baa 1 way schoolka waa ka 10 duuban laakiin tan 1 way session ah waa la galaa talooyin baa siya qaar baa la soo adeegaa qaar waxa jiro gabarada markada ku intaan Hargeysa waxa kala furto dukaan calaamad inta kala soo adeegna talada siinay Hargeysa kii labaad xamar ka furtay ma sha Allah guuleystay marka talooyinkaasna waa marka santa business inta public aadi waa intaas ku jira waayay sababta ku weydiisay waxa ahayd 800 ayaan arkay 600 nad ka sameeyay YouTube absolutely waan ogahay xafiiskaagana 400 baa wala bixiya si suurtagal ku hay sababtaas marka ku weydiisay su'aasha ugu dambaysan leeyahay aan ku weydiiyo aan rabo inuu soo gabagabeeyo laga yaabo inay mid ka dambaysay ma jiraan dad ama buuga ka caawisaad shaqaalnimada uga baxdo absolutely buug waxa jira aan aad runtii u jecelahay oo meel kasto speech aan ka jeedin dhalinyarada waa la wadaagaa social media ay ku arkeen buugaasi waxaa la dhahaa Atomic Habits baa la dhahaa shaashada Atomic Habits صح waa buug number 2 aniga waxa weeyaan dhikay isbeddelay barnaamijka ku sameeyo Atomic Habits hal waxa weey ka hadlaya waxa loo yaqaan mataqaana tiny walk صح iyo mataqaana remarkable
waxa weeye remarkable result أنا waxa weeye shaqo yar baa qabanaysaa result weyn baa soo baxayso laakiin waqti bay u baahan tahay waxa buugan wuxuu ku leeyahay tusaale kale maantaada bari ka fiican tahay guul baa gaar tusaale kale maanta wax ma akhriso ka soo wax akhray matid 10 daqiiqo akhri bas every day sanad wad laakiin maalin kasta wad 33 print bay noqonaysaa sanadka dhan intee buug baa dhamaysa laga ina 3 buug 4 buug dhamaysa sanadka dhan adoona awl akhrin jirin aqoonta qaabka u fikiraysid matid marka waxa weeye buugan waxa weeye daily life ka baa wax ka bedelaysaa dhanka productivity iyo horumarka wax yar bedelaysaa wax weyn ma rabo markii isku bedbiraan macni sameynayaan wax weyn marka buugaas dhalinyarada aad baa uga talinayaa buug labaad aan kula talinayo waxaan taqaanaa how to make time waa kula talinayaa how to make time how to make time waa buug muhiim weeye wax ku barantaa time management dadku way ku dhibayeen time management wax ugu muhiimsan weeye inaa waqtigaaga maalgeliso waa inaa baran kara wax loo yaqaan no maanta halka ay raa qof iska camal ayna noqon oo go'aankaaga iyo muhiimigaaga iyo shaqadaada inaa aadid marka soo dhameystid dadka kale aad caawin kartaa aad laakiin horta priority waxa ay hadaan marka buuga time-ka lagu bartaa asoo audible lagu jiraa audible ba Amazon baa laga dhigsan karaa buugta audible iyo buug PDF ana waa heli karaa kan u dambeeyana waxaan ku soo koobayaa buug dhaho mataqaana psychology of money qaabka u shaqeysa lacagta dadka inay lacag helaan laakiin qaabka u shaqeysa ma yaqaanaan story cajiib buu soo gelinayaa nin mataqaana la dhaho oo jaamacadda ugu weyn Harvard ka baxay dalka Mareykanka oo mataqaana guri qaali ah degan oo bangiyada waddanka ugu sare Amerika ka shaqeeyo deyn buu ku soo qaatay guri weyn oo mansana oo mataqaana luxury ah waxa leeyahay waxa weeye Amerika mataqaana recession dhaqaalaha burka Mareykanka ka dhacay dhaqaalaha ninkii guriga laga soo xishay banaanka ninka la saaray zero ku soo dhacay deyn buu ku socday laakiin aqoon ahaan uu dhisnaa oo bangiga ka shaqeynay nin kale marka buuga waxa story macna soo xawin nin kale oo janitor oo dadka dhulka xaqa ah maalin kasta wuxuu maalgashanay suuqa stock galay investor buu ahaa soo shiid ah waxa loo qaaday tabasan tips ka dhigay ninkii markuu dhintay ka dhintay lacag aad u badan dhowr milyan ah marka buugaas psychology of money abarta kan u dambeeyay waxa weeye the richest man in Babylon yes buugaasna hal akhriso investment marka noqoto iyo saving si xoog ah saving kara maanta muhiim buuga balafan stock richest man in Babylon waxa weeye hal marka waxa la richest man in Babylon balada waa buug ajiib ayagana hal akhriso afarta buug midi caadooyinkaaga iyo caadooyin wanaagsan sida loo dhiso ayuu ka dhisay midna waqtiga labana waxay ka dhisan financialkaaga absolutely way bal buugtan anu su'aasha sababta ku diiyo waxa weeyaan ma arkin adoo buug ka sheekeynay sababta darteed baan rabay bal fikradan iyo qaabka fikirka halkaad ka keenayso waa buug aad akhrisay marka dad badan ma uga sideedoo kale ayay ka yihiin inaad akhriso looma malaynayo ma jiraan hadaba dad iyaguna ka caawiyo talo maxaya inaa wax akhriyo may in aad shaqaalnimada ka baxdo wallahi oo guidance ku siiyay ama talooyin ku siiyay ama mentor ku noqday wax noocaas ha dabcan mentor waa leeyahay mentorada de waxaan dhigi karaa koorsooyin aan qaatay weey oo online u banaayeen macallimiinteeda ajaanib weey wax kulligood marka ayaga de koorsooyinkeeda ba ka looxjiid laakiin mostly self study baa sameeyay waxa weeye weligay skills-ka aan bartay school ma aadin online ba ku bartay online waa very powerful tool weeye hadoo shaqaysan online wax ku baran kara marka self study waa sameeyay self study hadii aad baratid qaabka loo sameeyana maanta de Google baa jiro computer baa helaysaa Google ka baa helaysaa maanta YouTube ku waxbarashada mustari waa YouTube maanta waa jaamacad YouTube ku duulaysa miilka waa jaamacad weeye wax ka baranaysaa koorsooyin hada u baahanta professional waa iibsan kartaa marka maanta toos aan qabsaday ma jiro laakiin course online aan qaatay self study badan waa sameeyay waqtina waa galiyay then adiga wixii master baa ku markaa abagaysa master baa ku noqonaysa cilmiga aad baad mahadsantahay talada ugu dambaysa jeclaan lahayd inaad nala wadaagto anagay bulshadana daawanaysa talada ugu dambaysa waa aan kusoo gubiyo waa laba shay weeye waxaana dhammaanta ay kasoo sheekeyn laba un bay u kala baxayaan waxaa loo yaqaano qofka inuu la yimaado commitment haddii aad ina hadafka ka xaqiijida waa inaad la timaado waxaa loo yaqaano commitment ka go-aansho ka go-anta waxaas baan sameynayaa buugga hadda aan idin sheegay atomic habits commitmentigaas markay marayso aad baa ka sheekeynaya laba uu qaybinaya waxana waa goal waxana waa process weeye dadku badankooda ina maanta goal degsaad inta meesha aan fadhiyo 100 goal baad degsan kartaa waa qoraynaa okay
achievement aan gaaray kana gaaray waxbarashaan dhammaan jacayl ka baxay anti basna ganacsiga bilaabaya halkaas u safaraya waa fuudahay laakiin dadku taas gool ma iska sameeyaan shaqada isa galaan dadna wixii ma qabtaan dhibta waxa weeye processkii ma galayaan marka buuga waxa ka faa'iideysaa goolka waxa ka muhiimsan waa processka weeye processka waxa weeye inaan waxbarasho bilaabo raba inaan iska koorta barta raba processka la imam koorsada iibso ama free ku gal waqti u samee wax kasta inta baranaya halkaas uga baxaya timeline baa samaysan ilaa inta ku dhameynayo marka waa muhiim weeye wax kasta waa inaad community la timaada goolka kaliya ma ahan processka bilow oo jeex marka soo kacso wax sameynaya marka goolka resultiga waa gaarisa goolka macna masal goolka meesha u dhamaysto processka haduu ku haysay waa u imaanaysaa tan labaadna waxa weeye oo ka sii muhiimsan in loo koodka waxa iska Denzel Washington baa iska leh marka mid community ka sii muhiimsan oo more important la wuxuu dhahaa waxa loo yaqaan consistency weeye waxa loo yaqaan joogteynta waa halkii u dhimatay weeye joogteynta qof January waxa dhawa maalmaha ugu motivation badan adduunka gym waxa la yidhi bisha January ilaa March dadka ugu badan habar kasta oo gym waxaa joogtaa waaye motivation weeye sana cusub bilaabanay kuwa aan dadka motivate أنا أردت تبغى أنا موتيفيشن قبل ما أقارن واحد ما نجعله ما قفت مال استاذ ضدك يرجع زائدة دي قبل ما نجعله وحنا قف كحاول شجع سكيوني وح حبرك وصعد هذا جارية مركز زدك واحد ويشوكتين توي مركز واحد جين توي واحد مركو إلى زدحات بروحه لحد ما كل شوكتات كلبر متشوكارت سنة كذا مسك بلانسين مركز هذه الحالة دافنة dadka serious ka ba isku soo haro marka filli kasta waa saas mid matiga waxa ka sii muhiimsan waxa loo yaqaan waa joogteynta ama consistency weeye wala meesha iyo runtii aad ugu dhimato dhaatooyin badan waxa dhan book aan ka akhriyay dadka guuleysto boqolkiiba 90 markuu barashada hadda bilowday mashruuc bilowday intee aragnay maanta qof wax bilaw kulaniyo waxa bilaabay hadda wadada hadda heer baan gaaray marka boqolkiiba 90 markuu marayo oo 10 u dhimantay percent 10 kaliya dadku way ka haraan boqolkiiba 90 waana meesha waxa laga yaabaa marka caqabadaha sidaba haday aragto waxa dhahan wax haduu ku cabsi geliyo wax saxda ana ma isticmaala yes mashruuc hada ina bilaawo haduu mashruuc uu cabsi geliyo waa warbaahinta waa adag yahay waa ka saxda waa bilaaba haduu si caajib gelina ومع إيجا عبسين أم كفرت بالكود دريمو نف ما نوحس حتى قاعد وي وحنفلا ما مركا أنت قولي يستوى أنت شغاشن كاس رافية بخال كارسي أوكي كونسيستي وماشي ودي متى أيضا أدمي واو أستاذ وقت آد وقرح بضن أيونا لك وضا قادني runtiin aad baad ugu mahadsantahay mar labaad waqtigaaga iyo sidoo kale xogta achievekaas aanan si fudud ku heli kar lahayn haddaan wax walba sameeyno sharaf baynu ahayd dadaalkii juudigaad gelinayso si aad bulshada xog adag aad ugu fudaydiso af Soomaali ay ku fahmi kareen fududna aad ugu soo gudbisana taasna ilaahay ka abaalmariyo mar labaad iyo mar saddexaad waqtigaaga aad baad ugu mahadsantahay aad ma mahadsantahay waxa weeye idli saaxiib waxa weeye markii la soo dhawo iyo team hanti yeela idinkan aad baan salaamay